waxaanu qalab qaadanay maanta deegaan dalxiiseedka bixin doole oo ku yaala deegaan hoos yimaada gobolka saaxil waxaanu ka ambabaxnay 9kii subaxnimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer annagoo u sii jeedna deegaanka dalxiiska ku haboon ee bixin doole safarka socdaalkayaga oo saacado dhowr qaatay waxaanu waqti nasasho iyo qaday isugu jira ku qaadanay tuulada Hudisa ku dhawaad 80 kiiloomitir oo ka soo sokeynay magaalada Burco waxaanu hadda soo gaarnay tuulada Geedlokor tuuladaasi oo halka looga leexdo deegaanka bixin doole tuuladan markaad joogto waxa 9 kiiloomitir oo raf ah uga leexanaysa dhinaca galbeed halkan oo ah bixin doole markii aanu soo gaadhay waxaanu daymada indhaha la raacaynay cagaarka kala duwan ee dhirta waxaana ka baxda noocyada kala duwan ee khudaarta sida saytuunka cambaha timirta muuska iyo walibana waxyaabo kale waxaanu arkaynay durdurada biyaha oo meel sare ka soo daadanaya sidoo kale waxa la yaab nagu noqotay markaanu aragnay kalluun ku dhex dabaalanaya durdurada maqalka dhagahayagu waxay ku raaxaysanayeen codadka shimbiraha ee dhawaaqyada kala duwan sanka waxaanu la raacaynay carfiga iyo udgoonka dhirta dalxiisayaal badan ayaa ku soo qulqulaya goobtan dalxiiska ku fiican si ay qayb ka mid ah waqtigooda ugu qaataan goobtan dadkani waxay ku mashquulsan yihiin galista sawirro qurux badan oo ku haboon jawiga maanta waxay galayaan sawirro baritoon wax xasuus ayay u noqon doontaa oo kale waa ay dabaalanayaan goobtan deegaanka bixin doole laado waa deegaan ku haboon dalxiiska jawiga waa deegaan qalbiga qofku ugu degayo waa deegaan uu kaga raysan karo buuqa magaalooyinka وكغير رئيسان كرو شقدي فرح بدنيد دالكي وديغان ku ilaabi kara waan oran karaa qofka shaqeynaya ama qofka magaalooyinka hadii jeer ku raago kala stress ko kala ku furmo waa deegaan lagu ilaawi karo wax kasta oo dib aad ka filanaysa magaalada dhexdeedii deegaankan waa deegaan ku haboon in qofka bini'aadanka ah uu intuu yimaado waliba uu waxaan ku soo qaato shaahiisa iyo imkaaniyaadkiisa yar u baahan yahay وهلكا عولا kala baxo isagoo amaankiisi iyo xaaladiisina waxaan ku ay sugan tahay jawiga barwaaqo sooranka Ilaahay bixiyayna uu marba dhinac ka milicsanayo marka waxaan oran lahayn deegaankan waa deegaan aan laga maarmi karin oo looga maarmi karin nasashada iyo dalxiiska waa dhulkii la oran jiro kale maanta aanu aragnay baan oran karnaa anigu dhulkii la oran jiray dhulkina nimca fadhida maanta halkan bixin doole fadhida baan leenahay deegaankan bixin doole horteen muddo كل يادو فيديو حوغا ير ka horbaan martay ka war helay anigu waan helay shaashadahan ka daawaday ama sawirradooda arkay goobtan markii aan ka war helay ugu horeyn horta sawirrada muuqaalkan arkay baan si weyn ugu hiloobay inaan imaado baan ku hanweynaa mar walba deegaankani waa deegaan ka mid ah Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland waa deegaanada runtii Soomaaliland ku dhex yaala aadka u quruxda badan leh maanta anagoo dalxiisayaal badan waxaan soo booqanay deegaankan oo ku yaala Soomaaliland gaar ahaan Berbera iyo Sheekh dhexdooda magaciisa waxa lagu magacaabaa bixin doole run ahaantii markaad halkan timaado waxa dareemaysaa wadaniyad dhaba iyo waxa weeye jawiyo furfuran oo aan runtii aan hore loogu arag gabi ahaan geyga Soomaalida run ahaantii aad baan faraxsanahay maanta ilaa markaan ilaa hadda roob baan ugu daaya deegaankani hadii aad timaadaan indhaha kuma hay kartaan waxaan leenahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee joogta daafaha Soomaaliland ay noogaana dalkeena dadka qaar waxay uga yimaadeen meelo fog si ay ugu soo raaxaystaan dhulkooda hooyo
horta ma sha Allah maanta jawiga aan qiyaasi karo amba maanta aan oran karo maxay tolay waa jawi aan dareenkay ku cabir karaba maaha oo waa jawi aad u qurux badan hadda daruuraha cirka marayo kala daruuraha sida quruxda badan ay u rooban yihiin dhirta Greega ma sha Allah waa jawi aad iyo aad u qurux badan maadaama maanta asxaabtaydi jaamacadda waliba aan la socdo oo asxaabtii jaamacadda dhan aan wadanahay walayn horta run ahaantii anigu Hargeysa ka soo kicintinay oo Hargeysa ka nimid oo jawigan quruxdiisa aan ugu nimidineen Hargeysa maxay tolay aan bal jawigan social media maraya balse aad marun soo aragtaan laakiin inda waxay arkaan biilka gooyaan ee Soomaalidu ku mahmaada marka waxaan aragnay wallahi jawi maanta aan inaba hadal iyo maxay tolay odaha midna baan lagu soo koobi karin intaan ku soo guda jirnay safarkeena dalxiiseedka bixin duule indhuhu waxay qabanayeen dhir qurux badan dooxiyo jawigu iyo naftu ay ku degayaan runtii waxaan kula kulanno kale dalxiisayaal aad u badan annagoo nafta ay nagu degtay dadka kulaylka iyo ka cabanaya iyo magaalada saxmadeeda waxaan u sheegaynaa in halkan imaadaan oo ay waqti ku qaataan deegaanka bixin duule waxa uu leeyahay waxyaabaha nolosha aadamaha aasaasiga u ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waana deegaan ku habboon nolosha aadamaha markaad eegto jawiga iyo cimilada qabow goobtani waxay ka mid tahay goobaha ugu bilicda iyo quruxda fiican Somaliland dadku waa inay ku baraarugsanaadaan bilicda dhulkooda hooyo wasaaradda dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland waa inay maalgelisaa goobaha dalxiiska si dalxiisayaal badani u soo booqdaan la markaasina dakhli uga soo xaroodo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya وراليد الشاخيو بحين دولي حين وراليد الشاخيو بحين دولي حين وبري سمادو حوله برغنايا وبري سمادو حوله برغنايا محمد يوسف عبد الله محمد وردي TV qaranka jamhuuriyadda Somaliland deegaan dalxiiseedka bixin duule oo ka tirsan gobolka saaxil